madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalintii labaad ku sugan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta deeq xoolo nool ku wareejiyay dadka dhimirka ah ee ku jira isbitaalka weyn ee magaalada Boorama iyo sidoo kale dadka maxaabiista ee ku xiran jeelka weyn ee magaalada Boorama. Goobta deeqdani lagu wareejinayay ayaa waxa goobjoog ahaa agaasimaha madaxtooyada Somaliland Maxamed Cali Bile iyo sidoo kale maayarka degmada Boorama, isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal iyo sidoo kale taliye ku-xigeenka asluubta ee gobolka Awdal. waxaana ugu horeyn halkaasi faahfaahin ka bixiyay agaasimaha madaxtooyada Somaliland Maxamed Cali Bile ayaa waxa uu yiri saaka waxaan halkan isugu nimid in saddex neef oo geela aan ku wareejino isbitaalka guud ee magaalada Boorama, isbitaalka dhimirka iyo jeelka magaalada Boorama. taasina waxay qayb ka ahayd wafdigii madaxweynuhu hogaaminayay ee magaalada joogay oo muddo 3 maalmood magaalada safar shaqo u joogay oo madaxweynuhuna gartay in dadkaasi jilicsan la siiyo nafaqo. marka saddexdaasi geela waxaan ku wareejin doonaa halkan maanta inala jooga maayarkii magaalada caasimadda Boorama iyo taliye ku-xigeenkii ciidanka asluubta isaguna halkan nala jooga, isduuye caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa isna inala jooga, madaxdii kale gobolka iyo madaxtooyaduna way inala joogaan Cabdirasaaq iyo Maxamed Sheekh Daahir. marka runtii aad baan ugu faraxsanahay in dadka jilicsan maanta la gaarsiiyo nafaqadaasi saddexda geela loo qaybiyo saddexda meelood oo ah isbitaalka guud, jeelka iyo isbitaalka dhimirka. marka waan ku soo dhaweynayaa, waan ku wareejinayaa xoolahaasi madaxweynahana idin soo dhiibay. arrinkaasina waa kulli waa si caado ahayd oo markasta madaxweynuhu magaalada yimaado waa dhaqaale ama nafaqo u siin jiray dadka jilicsan. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in dhaqankaasi sii socdo oo markasta magaalada la yimaado dadka jilicsan waa loo gargaaro. marka waan idin ku wareejinayaa xoolahaasi saacadda mayor iyo taliye ku-xigeenka iyo isduwaha caafimaadkaba iga gudooma. wixii intaasi ka dambeeyay maayarka degmada Boorama ayaa si rasmi ah deeqdan ula wareegay waxaana uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim. ilaahay baa mahad iska leh. maanta waxaan kala wareegnay saddexdan neef ee geel ah oo madaxweynaha oo safar shaqo Boorama ku joogay uu ku wareejiyay dadka jilicda san leh ay ka mid yihiin dadka dhimirka wax ka qaba, dadka dhakhtarka jiifay xanuunsanaya iyo dadka xidhan ee jeelka. marka aad baan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha uu wakiil ka yahay Maxamed Cali Bile, agaasimaha madaxtooyadu waa kuwa waxay nala joogay isduwihii wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal, taliye ku-xigeenkii jeelka. waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad, waana dhaqan hore u soo jiray. waan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha. iminkana waxaan ku wareejinayaa isduwaha iyo taliye ku-xigeenka jeelka oo saddexdan neef ee geel ah la wareegaya haddii Ilaahay yiraahdo. waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishinka Badda Cas 24 TV, magaalada Boorama.